بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan halka kusoo gabagaboobay shirkii loo yimid Brussels oo New Deal ka ahaa sida la wada socotaan lacag ka badan 1.8 milyan ama 1.8 bilyan oo euro ayaa lagu ballan qaaday in Soomaaliya lagu saacidayo uu ka duwan yahay shirkan shirarkii hore oo dhici jiray uu uga duwan yahay baahidaasi ballanqaadkaas waxaa lagu sameeyay baahida iyo muhiimadaha dadka Soomaaliyeed ay soo bandhigeen guud ahaantooda kadib 3 bilood oo wada tashi ballaaran oo la wada sameeyay kadib ayaa waxaa la soo caymay baahidaasina dalka Soomaaliya intiisa badan oo dhan waa wax laga soo ururiyay ballanqaadka maanta la sameeyay marka waxaa lagu sameeyay baahidaas dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin hay'ado kale oo ama international NGO ama ciidamada AMISOM ama cid kale oo lagu kula ama iskala lacagta ama wax kula ma jirto lacagta dhammaanteed waxa iskala dadka Soomaaliyeed waxaana muxuu ahay loo sameeyay loo ballan qaaday lagu heshiiyay in la dhiso mechanism ama qaab lagu maamulo lacagaha dawladda Soomaaliyeed ay u tahay hoggaan internationaliska lacagta bixiyayna ay qayb ka yihiin sida lacagta loo bixinayo lacagtan waxa loogu talagalay 3 sano ee soo socota Soomaaliya guud ahaan meel walba kamid inay gaarto hadday tahay education hadday tahay health hadday tahay security hadday tahay justice iyo systemkeena cadaaladda hadday tahay reconciliation and peace building dib u heshiisiinta iyo nabad dhisidda iyo dawlad dhisidda intaas ayaa loogu talagalay lacagta aad iyo aad ayaa waxaa loo qaabeeyay mechanismedii ama qaabkii dabagal loogu sameyn lahaa ballanqaadadaada inay yimaadaan waana rajaynaynaa inay yimaadaan waana sii socon doonaa waa sii daba joogi doonaa shirka maanta kuma dhamaanin guddiyaa samaysan dabagal wixii maanta lagu dhawaaqay ama la sameeyay dabagalo marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa adduunyadu way muujisay in ay kaalmo cad ay garab kala taagan tahay laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mar kale idinku iskaalmeeya khilaafka iska daaya far isku fiiqfiiqa iyo isxamashada iska daaya waxa idin taray waxay tahay in la arkaa haddii adduunyadu ay aragto inaadan u diyaarsaneen lacagtan inaad qaadataan lacagtan inta la soo celiyo ama maal la siiyo ama Syria la siiyo ama meel kale la siiyo wax diidaya ma jiraan dadka Soomaaliyeed dhinacooda haddaan guuldarro ka imaanin dhinaca caalamka guuldarro kama imaanin dawladda Soomaaliyeed way ka shaqeysay inay caalamka ku qanciso isku keento in Soomaaliya la saacido waana la saacido Soomaaliya مصطفى حاج هارون تلفزيون عالمي هون كيبل تي في حرونتا ميدوغا يوروب بروزيلس